marka labaan u kala qaadaynaa hadduu camdi yahay qaliilan wa kathiiran salaada wuu burinayaa kalaamkaas haddii laakiin uu nisyaan yahay kalaamku wuxuu salaada burinayaa hadduu halmaamo yani hadduu badan yahay bas qofkii asagoo naasi uhu hadlay hadal ku hadlay hadalkaas goormuu salaada burinayaa markuu badan yahay yuu burinayaa amaa hadal yar ood ku hadashay adiga oo halmaansanna aad ku hadashay inaad salaad ku jirtid ama jaahil baa tahay oo mar dhowaabaad soo islaamtay jaahilkii macduurka waad garanaysaa jaahil macduura waxaa la dhahaa meel kasta meelo badan bay noogu imaani jaahil macduura waxaa la dhahaa qofka qariibu cahdin bilislaami ah islaamnimada ayaa zamankiisa ku dhow oo hadda dhowaa tawxiidka loo qabtay waqti uu shareeco iyo furuucdeeda kala barta maba muslimba ma ahaynba ama nasha-a baciidan can alculamaa gaal ma ahane muslim buu ahaa laakiin wuxuu ku barbaaray meel culimmada ka fogo jasiirad ciloo bahgooye ah oon culimo joogin buu ku barbaaray qofkaas isna waa macduur qofka noocaasa hadduu yahay marka jaahilka ah oo macduurka ah ama uu yahay qof naasi ahoo halmaansan markaas kafiirka unbaa salaada burinahaye qaliilku salaada burin mahayo wuxuu ku yidhi ama hadday camdan tahay caamid hadduu yahay kas uga hadlo caalimna uu yahay oo uu ku cilmi leeyahay hadalka inuu salaada burinahay markaas qaliilan wa kathiiran salaaduu burinahay wayubdilu waxaa burinahaya asalaata salaadii alkalaamu hadal ayaa burin salaadaas hadal baa burinahaya sawaaun kaana alqaliil walkathiir farqi maka lahan hadalkaas camdan kasna uu u hadlay somaart camdan hadduu sahwi u hadlo kalaamkuna uu qaliil yahay salaada buri mayso waan sheegnay ama alkalaamu lqaliilu sahwan falaa yubdiluhaa waad hooskaaga leeyahay kow walow bixarfayni walow kaana kalaamkuba ha ahaado bixarfayni laba xarafba ha ahaado inuu wax badan ku hadlo shardi ma aha walow bixarfayni mutawaaliyeyni ilaahow muu laba xaraf ba ahaado hadduu rabo kalaamku laakiin bishardi labada xaraf inay mutawaaliyen yihiin waa shardi inay xiriiraan waa shardi haddii labada xaraf aysan mutawaali ahayn oo aysan xiriirin salaada burun mahayaan hadday rabaan haba bataane wuxuu yidhi ta haddana wuxuu yidhi tha haddana wuxuu yidhi ja waxaas kalaam ma aha markaas kalaam laguma magacaabaya markaas soo ma aragti ilaan waa hal xaraf buu ku hadlay halka xarafna wax macnaa ma faa'iideynayo kow salaadii burumaya markaas waa laba xaraf hadday yihiin waa inay mutawaali yihiin bal oo kale lam oo kale yuu ku hadlay lam waa lam iyo miim soo ma ah bal waa ba iyo lam soo ma ah thumma waa fa iyo soo ma aha miim adi laba xaraf oo kasta inay macno faa'iideeyaan shardi maaha labada xaraf hadduu ku hadlo salaada way buraysaa mutawaalina ay yihiin waxaa kaloo sidoo kale salaada burinahaya wanudqu bixarfin waaxidin horta wuxuu ku yidhi laa yubdilu wa in kaana mutacamidan soo maaragti haddii qofku hal xaraf ku dhawaaqo salaada buri mayso wa in kaana mutacamidan hadduu rabo haba u kaso kasba uga hadlo halkan xaraf salaada burin mahayo ilaa 3 xaalaa laga soo reebahaya 3 xaalo oo kalaamka qaliilka ah maya waxaan ka wadaa halka xaraf anudqu bixarfin 3 xaaluu salaada burin hayaa jirta xaaladda koobaad halkii xaraf haddaad mamduud ka dhigtid oo aad madid madka haddii xarafka la mado xuruufulmadka waa taqaanaa qofka qur-aanka soo barta uu garanaya xuruufulmad xuruufulmadku waa alif iyo waaw iyo ya weeyaan saddexdaasaa xuruufulmad la yidhahdaa alif waxa ka horeeyo lagu madaayo waa fatxa baa oo kale ba la kordhay soo ma aha mad baa bay noqon inta badan wowa waxaa lagu madaa damo waa inay ka horeysaa darabuu buu oo kale qataluu luu soo ma aragtid waa inuu xaraf ka horreeya uu gudan yahay sidoo kale ya-da waxaa lagu madaa waa inay kasra ka horeysa iyadana soo ma aragtid b oo kale b oo kale ama qiila oo kale qiila soo ma aragtid kasra ka horeysa ya-da marka haddii marka fiiri xarafkaas lagu hadlay uu mamduud yahay salaada wuu burinahaya ba keligeed ahaad yaad maday baa tiri kow waxaa kaloo sidoo kale uu burinahaya lambarka labaada haddii xarafkaas uu mufhim yahay oo macno fahansiinayo wuxuu waa hal xaraf
لكن هلكا حرف با معنى لغا فهمايا وحو كو يدي قي او كالي قي